islaantaasi ani ilama quman inay islaan talow hadday jiran tahay waan garan karaa hadduu wax kala jiro waan garan karaa laakiin gabadh caafimaad qabta oo raalliye noqon rabta oo janno rajaynaysa oo ninkeeda doonaysa qalbigeeduna sameel kala aadin inay ayadana iska mashquulso ama ay seexato kadibna ay dhahdo ninkeeda haye wuxuu cunay inay ka waraynin maya ma taa hal dalqa in lagu furo waay laakiin insha Allah ma dhacayso ragga waxaan leenahay noo daaya gabdhaha saadaradeed oo fiirsada gabadh walba hadda meesha fadhiya ma sha Allah gabdho badan baa fadhiya isku day inaad berri hadaad ahayd gabdhaha aan quraac sameeyninay may sooka oo ninkaaga qora waxa ceeba in lagu arko ninkaaga oo maqaaxiin cunto ka cunay mar walbaba fashil waaye waxa la garanayaa guri sax inuu ninka ka soo toosin ma la fahmo sabab gabdho maanta si fiican baan isu waansareynaa idan furaha koobaad muxuu noqday cunto noqday furaha labaad waa maxay ya waa sanka furaha labaad waa sanka iska ilaali ninkaagu sankiisa wuxuu dhibsanayo yuusan arkin hadduu ninkaagu adiga jirkaagu caraf gabdhaha waxaan u sheegaa waxaan jeclahay raggan inay aad u dhegaystaan warka waa war muhiim ah gabdhaha waxaan ku dhahaa horta gabdhaha adeer baan u ahay idin sheegay waalid baan u ahay waana jeclahay gabdhaha Soomaalida saadaradeed markaan la talinayo waxaan oo la taliyaa qaab waalidnimo ee oo lama taliya qaab nin caadi inaan ahay marka qaab waalidnimo amaan oo la taliyaa waxaan siyaa siro hoose oo khatar ah ayaan siyaa baaswari yar waxa kamida waxaan dhahay gabadhay markaa doonayso inaad ninkaaga isu qurxiso nadaafada kadib kareemka aad marsanayso 3-4 xabbo oo cadara ku dar waxaan u diidana ma garanaysaan laana gabadhu hadday intay barfuun soo qaato bish isku siiso jirkeedu wuxuu ahaanayaa maxay meel roob ka daay roob intuu ku daay roobka meel la ka daay meel la ka tagay ninka hadduu meel san ka saaro waa abaar meel hadduu san ka saaro waa barwaaqo lama doonayo waxaa la rabaa inaad kulli barwaaqo noqoto waxaa taa lagu gaari karaa oo keliya inaad kareemkaad marsanayso intaa 2-3 laakiin ogaada qodobkan ogaada gabdhaadu dhageysta waxaad ogaataan waayahan markii wadamadan la yimid dadka sanka xidmay allergy badan baa la qaaday marka barfuunada khatarta ana ninku kaaga fogaani hadaad arto markuu ku carfiyo asagoo hindhisaya ka fogow saadaradeed waa inaad marka horeba taqaanaa ninkaaga barfuunka ku haboon waa inaad taqaanaa Soomaa marka horta taasi waa sir khaas ah waa qodob weey idan maxaan haynaa adiga jirkaaga waxa weey waa sanki weey qodobka saddexaad ee furaha saddexaad waa maxay qodob kasta oo gabdhaha iyo wiilashu waa isku mid adigana waa laga rabaa maxay nadaafadii waa laga doonaya haddaan nintaay maanta oo adiga oo makaanig aha ama adiga oo taksiila aha ama adiga oo macallin aha ama adiga oo shaqaale aha haddaad xaaskaaga oo qurux badan u timaado maxay u baahan tahay waa nafle waxay u baahan tahay sida ay kugu isku qurxisay inaad adiguna isku qurxiso sida uu dhihi jiray Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu waxaan jeclahay xaaskayga inaan isku qurxiyo siday anigaba isku qurxiso warka wala fahamsano furaha saddexaad waa maxay ya furaha saddexaad waa maxay furaha saddexaad waa isha fiiri weliga iska ilaali inuu ninkaagu soo galo guriga adiga oo baatigi basasha qaba waa ceeb taa waa ceeb may gabadhu markuu odaygeedu guriga soo galayo waa inay indhaha waa inuu ka dhargaa fiiri indhaha cuntada markii la soo dhigo indhaha laga dhargaa hatta al-aynu ta'sha qabla al-qalbi walaga ishu waxbay jeclaataa qalbiga ka hor soo ma aha saadaradeed cuntada indhaha laga dhargaa adiga oo qurux badan oo waliba ninkaaga waa taqaana wuxuu jecel yahay iyo dharku jecel yahay maxaa lagu garanayaa aduu maanta uu ku yiraahdo wallahi dharka aad baad ugu qurux badnayd ogow ninka dharka uu soo jiitay sida daraadeed furayaasha waa qodob muhiim jiddan way qodob kala jira waxa la yiraahdaa al-ibtisaama gabdhaha qaar baad moodi in habeenka oo dhan la dilay oo ragga qaar ba iska xanaaqsan oo asagoo buuqay oo xanaaqsan buu soo galaa maxay ka dhimaysaa inaad ilka cadayso ragga ajaanibta walo ilka cadeeyay maxaa diiday inaad ninkaaga u qosasho markuu guriga soo galo
saaxiib adigu maxaa diidaya markaad gurigaaga soo gasho adigoo carfoon oo cadayan oo qoslayo dhoolla cadaynaya inaad xaaskaaga u soo gasho maxaa diidaya ii sheeg wax diidaya idan waa muusoodka iyo dhoolla cadaynta waxaa la yidhahdaa mafaatiixu tafaahumi bayna zawjayn labada qof waxay isku fahmayaan bal aan khulaaseeyo inta haddii aan ka soo tago waxaan doonayaa hiqatu zawjayni bibacdihimaa waxay ka qaadanaysaa dowr cajiiba fiiriya markay labada isqabta isku kalsoon yihiin aatharta ka dhalanaysa ilmaha waa sacaado waa liibaan waa farxad waxa weeye waa qodobka kale alixtiraamu almutabaadal labada isqabta waa inuu mid walba midka kale u xurmeeyaa xurmo ma taqaanaan xosho ma taqaanaan qadarin ma taqaanaan yani fiiri fabajaxanii fabajaxtu yani fabajaxat nafsi yani waa i weyneeyeyo anigana waan isla weynaaday xadiidku muzarc akhriya xadiidku muzarc waa xadiid cajiib ah haween 11 oo meel fadhiistay oo raggooda ka sheekaynaya hadee qabl islaam bay ahayd lama ogolo hadda in la iska sheekeeyo laakiin min baabi taariikhu may caasho u sheegaysay waana xadiid bukhaari kusoo sugnaaday oo mataqaanaa saxiix ah weeye marka aad bay u tilmaamayeen laakiin waxaa la rabaa inay noqoto zawji almasu masu arnab wariixu riixu zarnab caraftu waa barfuun taabashaduna waa maxay taabashaduna waa sida kaalka la yidhahdo bakaylaha oo kale maxaa la yidhahdaa ixtiraam almutabaadal labada qof waa inay is-ixtiraamaan maxay isku ixtiraamayaan xagga caqliga iyo maskaxda iyo xiwaarka su-aal labada isqabta ma iskhilaafaan haa qodob baan ka hadli doonaaye markii la iskhilaafo ma la wada xiwaartamaa oo ma la wada fadhiistaa oo ma la wada hadlaa oo ma la isqanciyaa bise qof walba wuxuu doono ayuu sameeyaa waxaa la yidhi ixtiraamku waa shayga ugu qaalisan oo reer isku dhisa xaaskaaga markaad ka maqanta iyo markaad la joogto ninkaaga hadduu kaa maqaya hadduu kula joogo waxaa jira wax la yidhaahdo alixtiraam waa la iskhilaafi karaa lakin alixtiraam waa la ismaan dhaafi karaa lakin alixtiraam idaarat alkhilaaf qodobada igu muhiimsan bay ka mid tahay kolba culamo akhyaar aho ajillo aho mawduuca aad u yaqaana way fadhiyaan reeraheenna waxa ugu khatarsan khilaaf hadduu dhaco see loo daaweeyaa khilaaf hadduu dhaco see loo maamulaa khilaaf hadduu dhaco see loo idaariyaa khilaaf hadduu dhaco see loo maareeyaa khilaaf hadduu dhaco see looga wada hadlaa khilaaf hadduu dhaco see looga tallaabsadaa khilaaf hadduu dhaco sidee loo wada hadli karaa oo la isku qancin karaa reeraheenna waxa ugu khatarsan ee dumiya oo qodobkaa wey lama garanayo fanu lkhilaaf waa qodob gooni ah oo culummadu ay dawraad iyo kutub ka alifaan fanu lkhilaaf see ama idaaratu lkhilaaf ama fiqhu lkhilaaf maxaa la isku khilaafi karaa in badan reeraheenu isma yaqaaneen soo moogdiina horta taa ma ogti inaan la is aqoonba waxaan jeclahay inaan dhaho qofkay fursaddaa dhaaftayow maanta fursaddaa ka faa'iidayso caawa waa inaad bilowdaa adiga iyo zawjkaaga oo waa maxay awalan qodobka koobaad waa maxay aan isbaranno arrimay taqaana horta waa muhiim labada qof waa inay isbartaan ani maxaan jeclay ma taqaanaa maba taqaanin ba ninkaagu wuxuu jecel yahay xata alaan ma taqaanin xaaskaagu waxay jeceshahay xata alaan ilaa man raxima rabu lcibaad war haddaanan aqoonin waxaad jeceshahay haddaadan aqoonin waxaan anigu jeclahay sideen oga seen kuu siin karaa xaqaaga mar walba tusaale labaan ka dhigaa u fiirsada muxaadaraadka inta badan aan qoyska ka hadlo laba tusaale hala ka soo qaadaa waana dabeecadda ragga iyo dumarku ay kala leeyahay haddaan la isbaran markii la iskhilaafo haweenku inta badan way ooyaan ama maxaa la yidhahdaa qolkay isku soo xidhaa ama hadday doonto way hadashaa oo buufiska iska saartaa raggu inta badan wuxuu doonayaa inuu iridda fri ka dhaho oo iska buxuu doonaya marka horeba haddaan la dhihin haddayna gabadhu dhihin dhegayso sheekhow anugu haddaan xanaaqo gurigaan isku soo xidhaa ha itaabanin haddaan xanaaqo waxaan doonayaa in aan hadlo oon iska saaro naqaska hayla hadlin ninku u yidhaahdo haddii qaar ba haweenku markay xanaaqaan guriga shaqo ugu dhaqaaqa way dabeecaddu way kala duwanta ninkuna markuu xanaaqo wuu baxaa haddaan aniga adiga arrintaa isku ogeyn maxaa dhacaya waxaa dhacaya inaan maxaasad u duubaysaa soo bax
hadduu ninku dhaho anigu haddaan cadhoodo waan baxaa gardarrada yaa iska leh haddaad iridda istaagto ma adaale mise anaa leh adiga iridda istaagay baa leh waayo waxaan kuu sheegay haddaan xanaaqa waan baxaa waxaan soo laabanayaa anigoo kuu sida maxay anigoo ubax ku wada allah anigoo ubax kuu sida soo anigoo shukulaato kuu sida anigoo soo nafisay anoo ragga la soo sheekaystay anigoo misaad ku soo tukaday ayaan kuu soo noqone waxaad yeelaysaa aduu ha ila hadlin haddaan xanaaqo isku ogaada kadib ninkaagu markuu xanaaqay iridda usii fur inana hadda isagu jiro yahay adiga dhakhtar baad labada isqabta labadu waa dhakhaatiir asal laakiin hadba midka xanuunsada ayay jiradu haysaa ka kalena waa kii caafimaadka qabay haddayna labadooda marka aynan ahayn labo dhakhtar haddayna ahayn ma isdaaweyn karaan maya daawadii baad cudur ka dhigaysaa reerkuna halkaas ayuu ku dumaya waxaa jira idaaratu lkhilaaf ayib waan iskhilaafnaanay adiga ma naqaano seen u tacaamulnaa carruurtiina halkanay joogaan haye ma carruurta dhexdooda ku muranaa ma carruurta dhexdooda isku qaylinaa ma carruurta dhexdooda isku qabsanaa ma carruurta dhexdooda baan wax walba samaynaa iiga jawaaba waa xaqiiqataa la guryaheenne ha waa xaqiiqataa la guryaheenne waana waxa ugu badan oo dumiya saa daraaddeed culamaau tarbiya marka ay arrintan ka hadlayan waxay dhahaan abadan labada isqabta lama ogolo ee lamaanaha biwujuudi alawlaad carruurta oo joogta inay ka wada hadlaan wax u tusinaya carruurtu inay shar yihiin